Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada Bulsho Sports TV wararka ciyaaraha qodobada idinkeen waxaa ka mid ah West Ham ayaa kusoo laabanaysa dalabka Eduardo Real Madrid ayaa qorsheynaysa dalabka Torres Arsenal iyo Tottenham ayaa raadinayaan Korea kooxda Inter ayaa doonaysa Van de Beek Pjanic ayaa ku laabanaya Juventus intaas waxay noo hayeen qodobadii wararka kusoo dhawaada isagoo faahfaahsan West Ham ayaa kusoo laabanaysa dalabka Eduardo faahfaahinta warkan waxay noo haysaa Muna Ismaan Cali West Ham ayaa ka fiirsanaysa inay u dhaqaaqdo weeraryahanka Celtic Odson Edward Leicester ayaa hogaaminaysa loolanka loogu jiray helitaankiisa xiddigan laakiin waxay la saxiixan doontaa Patson Daka taa beddelkeeda balse kooxda West Ham ma jecla inay waqtigan ku degdegaan xiddigan Edward Odson Edward ayaa kooxdiisa Celtic ku biiray sanadkii 2018 waxaana heshiiskiisa uu ku eegay 2022 Real Madrid ayaa qorsheynaysa dalabka Torres faahfaahinta warkan waxay noo hayay Xasan Cumar Real Madrid ayaa ku adkaysay Pau Torres inuu yahay nin waqtigan ku haboon in la keeno kooxda ayaa shaacisay in kooxda reer Spain ay ku qancisay 24 jirkan difaaca dhexe laakiin kooxda Real Madrid kalsooni kuma qabto in sanadka la soo wareegaan balse waxay eegi doonaan inay gacanta ku soo dhigaan Pau Torres sanadka dambe ama ay kooxdu dumtay tiirarkii difaacay ku taagneyd madaxweynaha kooxda Real Madrid ayaa doonaya inuu ku soo biiriyo difaaciyo badbaadin kara kooxda maadaama uu kooxda ka dumay tiirarkii difaacay ku taagneyd Arsenal iyo Tottenham ayaa raadinaya Korea Lazio ayaa diyaar u ah inay iska iibiso Korea xagaagan iyadoo Arsenal iyo Tottenham ay isha ku hayaan AS ayaa sheegay in Lazio aysan diyaar u ahayn inay aqbasho dalab kasta ee ka yar 30 milyan oo euro ay ku doonayso weeraryahanka Korea xagaagan weeraryahanka reer Argentina ayaa lagu soo waramayaa inuu soo jiitay indhaha kooxaha Arsenal iyo Tottenham Hotspur kadib markii uu wacdaro ka dhigay Serie A Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay aragtay dalab gaaraya 20 milyan oo ku aadan Korea oo xagaagan waxayna ku qasbanaan doontaa inay dalabkeeda kor u qaado si ay fursad ugu hesho inay heshiis la gasho Lazio ayaa ka fiirsan doonin dalabyada ka hooseeya 30 milyan oo euro xagaagan iyagoo raadinaya inay helaan inta ay ugu macquulsan ee 26 sano jirkan kooxda Inter ayaa doonaysa Van de Beek faahfaahinta warkan waxay noo haysaa Muna Ismaan Cali Inter ayaa doonaysa inay heshiis amaah kaga soo qaadato kooxda Man United ee Van de Beek Calcio Mercato ayaa ku soo waramaysa inay kooxda ka ciyaarta Talyaaniga ay doonaysa inay la soo saxiixato xiddiga cusub oo bedel Christian Eriksen kadib xanuunkii wadna xanuunka ah ee asiibay intuu u ciyaarayay tartanka Euro 2020 Van de Beek ayaa musharaxa ugu sareeya laakiin Inter ma awoodi karto inay iibsato waxayna rajeynaysaa inay heshiis amaah kula soo wareegto xilli ciyaareedkan Fernandinho ayaa sii joogaya Manchester City faahfaahinta warkan waxay noo hayay Xuseen Cumar Fernandinho ayaa diyaar u ah inuu la ciyaaro kooxda Manchester City dhamaadka xil ciyaareedka soo socda halyeygan ayaa qandaraaskiisu wuxuu dhacaya dhamaadka bishan Daily Mail ayaa isha ku haysa in Fernandinho uu qarka u saaran yahay inuu saxiixo qandaraaska hal sano ah inkastoo markaas uu muuqday liiska xiddigan oo la iska iibin doono haddana waxaa lagu soo waramayaa inuu sii joogi doono kooxda ka ciyaarta Premier League tababaraha Pep Guardiola ayaa isha ku haya inuu sii haysto xiddigan 36 jirka ee awoodda badan Pjanic ayaa ku laabanaya Juventus faahfaahinta warkan waxay noo haysaa Muna Ismaan Cali Barcelona ayaa diyaar u ah inay Pjanic dib ugu soo celiso Juventus Corriere dello Sport ayaa sheegaysa inay kooxaha Inter Milan Napoli iyo Juventus ay la xiriirinayaan Barcelona si ay u helaan laacibka reer Bosnia laakiin wax walba oo muujinaya amaanshaha Turin ayaa noqon doonta halka uu ku wajahan yahay Juventus ayaa doonaysa heshiis amaah ah oo 2 sano ah haddii uu yareeyo Pjanic mushaarkiisa Pjanic waan hubaa inuusan doonaynin inuu sii joogo Barcelona si dirqi ah ayuu xilli ciyaareedkan ugu soo muuqday safka Ronald Koeman taas waxay u egtahay inay sii socon doonto tababaraha cusub ee Juventus Massimiliano Allegri ayaa u arka inuu muhiim u yahay in kooxda waqtigan maadaama Juventus ay diyaar u tahay inay kala tagaan xiddigeeda Aaron Ramsey iyo Andre Rabiot xagaagan intaasi waxaa kusoo gabagabaynaynaa wararkii ciyaaraha Bulsho Sports TV waa anigoo Qamar Maxamed Cumar sidaas iyo nabadgelyo